waxaynu u ballan qaadaynaa inaynu ula shaqayno sida ugu wanaagsan oo daacada oo calolfiyoobe midna waxa weeye deegaankan iyo garoonkan ilaahay mahadii waan ku ammaanayaa dadka deegaanka ee ku nooli markii la yidhi aynu garoonka garoon weyn ka dhigno markii la yidhi waan ha noqdo garoon caalami ah taariikhda wuxuu yeeshay labadaa goor oo mar horena 94kii aqoon darro waa la isugu dhacay oo dadkii ciidankii markaa joogay jabhadda ahaa iyo wixii kale ee markaa guddi ahaa ee guddi siyaasadeed ahaa khaladaadkii yimi iyo madaxdii dowladda lafteeda ee markaa joogtay khaladkii ka yimi wuxuu sababay wixii dhacay aan ogeyn alxamdulilaahi rabbilcaalamiin xukuumaddan maanta aan ka mid ahay baa heshay fursad dadkii bisil yahay dadkii deegaanku bisil yahay dowladdii diyaar tahay la iswada ogol yahay garoonkii uu yahay kaa maanta ay dowladaha waaweyn ee caalamigii soo fadhiistaan ee ay aaminaan farxaan wasiirka cusub oo dhalinyaro ah sidaa aad sheegteenna deegaanka ah waxa uu fursad u helay garoon wanaagsan isagana wanaqaana waa nin maskax furan waa nin wax ku kordhin doona dhalinyarada faraha badan leh ee hore uga shaqaynaysay ee garoonka joogtay iyo isaguna way isla jaan qaadi doonaan dadka deegaankana waynu u ballan qaadaynaa inay soo dhaweeyaan mushkilada waaweyn oo aynu farxaan ku cabsi gelino oo aynu nidhaahno farxaan oo barnaamijyaakil waaweyn oo aan la qaadi karaynin baa jira ma jira waxaynaan dhammayn karaynin ma jirto inta jirta annagoo ku garab taagan ayaynu dhammaynaynaa wax allo wax naga xumina ma jiraan waxbay nagama xumaanayaan waxa keliya oo jira ragga mustafe caabgaraadku uu ka mid yahay waxay ahaayeen raggii ku dhabar jabay oo tacabka badani uu ka galay guddida garoonka oo ballaarintiisiya laba guddi bay ahaayeen guddina dhinaca xukuumadday ahayd oo way jirtaa guddina dhinaca deegaankay ahayd oo iyagay ahaayeen mataan ninkaa la yidhaahday halkaa ka soo jeeday iyo waa ay ku jireen rag fara badan oo halkan imika fadhiyaa ku jiray waxaan doonaynaa raggaasi waxay noqon doonaan agaasimaha guudba iyo maamulaha airportka iyo muse sarafiyo way kuu garanayaan raggaasi gacmahaaga markay noqdaan dhegayna kula socdo waa runtiisa ciidangal kale uma baahnid waad shaqayn karaysaa raggaasi markay kula socdaan buugna uma baahnid ciidangalaha kale ee magaalada joogaa dee magaaladii joogaana adigu waxaad u baahan tahay intaa garoonka joogtaa ee ka agdhowey inay kula shaqaysto ciidangale sida dadka ayuu la siman yahay garoonka shicib ahaan shicibada kale unbuu la mid yahay laakiin inta deegaanka agtaalla iyo inta ka agdhowey hawsha gacanta ku haysay waad u baahan tahay mar walba waanu kaala shaqaynaynaa inteeda dowladda ku jirta